walaalayaal waxaad arkaysaa bulsho wada diimaysan ama ehluduun iska wada dhigaysa oo marka waqtiga salaada la gaaro meel la kala fadhiisto meelaha lagu cibaadaysto aan la kala helayn haddana ka sii daraysa hadday noqoto naxariis la'aanta hadday noqoto dagaalka hadday noqoto dirirta hadday noqoto musuqmaasuqa hadday noqoto qabyaaladda hadday noqoto qaxootinimada dulinimo kasta oo bulsho saameyn karta haddana bulshadaas waa wada iladuun oo waxay u wada cararayaan meesha lagu cibaadaysto walaalayaal ereyga ilaahay runtahay ma dhiso oo keliya xidhiidhka uu qofku la leeyahay ilaahay laakiinse wuxuu kaloo dhisaa wanaagga bulshada dhexdeeda ka dhaxeeya labadu way isku xidhan yihiin ma dhacayso inaad ilaahay istustid oo ehludiin iska dhigtid oo 24 saac salaad ku sheeg aad ku jirtid bini aadanka kula noola aadan jeclaan aadan caawin aadan nabadgelin oo aadan wanaagooda ka shaqayn waxa injiilka ku qoran oo ciise masiixna baray sidatan haddii qof yidhaahdo ilaahay waan jeclahay oo uu walaalkiis ama qofka kale ee bini aadanka ah necab yahay waa beenaale maxaa yeelay kana aan jeclayn walaalkii oo uu arko sidee buu u jeclaan karaa ilaahay oo uusan arag kii ilaah jecel walaalkiina waa jecel yahay walaalka kula dhashay ma dhiig waxa way qofka kale bini aadanka wax uu rabaa walaalayaal injiilka ama warka wanaagsan ereyga injiil macnihiisu waa warka wanaagsan ee badbaadada ilaahay ciise masiix haddii lagu dhaqmi lahaa adduunku wuxuu noqon lahaa mid nabad jacayl iyo horumar midhana wuxuu noqon lahaa walaalayaal adduun dadku markay ilaahay si daacada u caabudaan oo ay ilaahay jeclaadaan ay ka muuqanayso caabudaadaasi noloshooda guud ahaan ha noqoto xag dhaqan ha noqoto xag dhaqaale ama ha noqoto xag bulshaba